gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi ayaa xariga ka jaray xafiiska cusub ee garabka dhalinyarada ee gobolka Togdheer ee xisbiga wadani oo laga hirgeliyay bartamaha magaalada Burco waxaana ka qayb galay furitaankii xafiiskaasi madaxda xisbiga wadani ee gobolka Togdheer xildhibaano taageerayaal iyo saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waxaana la hadlay warbaahinta gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani Xuseen Kaahin ku-xigeenkiisa Cabdirasaaq Axmed Cali Sanweyne gudoomiyaha garabka dhalinyarada Maxamed Cali Suudi Axmed Xiis iyo xubno kale waxaana soo xiray munaasabada xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga wadani ee heer qaran Hinda Jaamac Xirsi Gaani iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi Axmed Muumin Seed waxaana kamid ahaa hadaladoodii marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad leh marka xigtana waxaan u mahadnaqaynaa dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ee sida aadka u qiimaha badan la isu xilqaamay ee iyagu alifay aasaasay xafiiskan weyn ee aan maanta hortiisa taaganay tacabkooda iyo midhahooda geliyay hawlahooda gaarka ee dhalinyarana ay ku wadan doonaan xafiiskan runaantii waa xafiis aad iyo aad u qiimo badan ujeedada aynu isugu niminaa waxa weeye xafiiskii garabka dhalinyarada ee gobolka inaynu maanta xariga laga jaro maanta dhalinyaradi gobolka Togdheer ee xisbiga wadani ay dhamaantood u dhantahay aad baan ugu faraxsanahay yaradana waxaan kula dardaarmayaa inay iskaashato inay hawlahooda qabsato annaguna ka maamul ahaan wixii aanu la qaban karno markasta waanu ku garab taaganahay kuna loonanay hadaynu nahay dhalinyarada gobolka Togdheer waliba xisbiga wadani inuu maanta inoo suurta galo waxa kale aanu mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad Axmed Muumin Seed oo waqtigiisii inoo soo huray inuu xariga inooga jaro oo isdhexgal fara badan oo bulshadaana sameeyay oo gobolka Togdheer magaalada iyo gobolkaba dhamaantiiba waan ku soo dhaweynaynaa waxa ay soo wakiishay Maxamed Deeq Muuse Ibraahim oo jooga dalka China wuxuu jeclaystay inuu xisbiga ku soo hagaajiyo qalab sports waxa ku xardhan saad aragtaan xisbiga wadani kuwa kalena waxa ku xardhan magaca gudoomiyaha xisbiga Cirro oo halka ku qoran farxad weyn bay ii tahay furitaanka xafiiskan inaan maanta goobjoog ka noqdo waayo waa meel runtii loo baahnaa waa wax gobolka ka dhinaa waa waxay dhalinyarada xisbigu u baahnaayeen aan oran karo ta gobolkuna way u baahnayd waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka keenay agabkan kala nooca ah ee ku deeqay qurbajoog iyo qurmajoogba maanta xafiiska la furay dhalinyarada ayaa farxad weyn ah mideynta dhalinyarada gobolka Togdheer farxad weyn bay tahay waan ku hambalyeeyaa halka waxaad ku arkaysaa agabka cid kastoo ka qayb qaadatay oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Cabdirasaaq Sanweyne oo runtii kombiyuutarka sidka xafiiska ku shaqeynaya keenay waxaan la kulmay dhalinyarta gobolka ee dhagoolayaasha dhalinyarta tiradoodu waxay sheegeen inay koox qurayiin dibna kooxda waxaan ugu talagalnay hal diriis iyo labada kubadood inaan iyagana xisbigu shirkiisii golaha wuxuu qabsan doonaa bisha 10aad hadii Ilaahay yiraahdo kan waxaynu kaga gudbi doonaa midnimo iyo inagoo gacanta isaysan guulbuna ku dhamaan doonaa Ali Daar Maxamed Boos TV caalamka Universal Burco